بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لها قيمها بدن كسو دوادي أرداقينا وقروح بدن تهينات براتو داد عصب أديقنا أي كبرتان دادكو لكن وحاكسي قروح بدن إنا نقطة قف سامين وناكسان كرهيبا مسكح دا قف كستو الله كل ما هادا بس ديكو نقون كرتها شخصية أنك بحين حسوس دادكا موضوعين مانتو قضب كاس أيو كشيدا القادنية waxaan idiin soo gudbinaysaa anigoo hayaan jaamac nuux ayaan dhalad ku soo dhawaada waxaa jira dhowr qodob kuwaas oo ka caawin kara inaad raadi wanaagsan ku yeelato qof kasta xasuustiisa noqotana qof ay dadku jeclaystaan inay mar kale la kulmaan qodobka koowaad jirkaagu ha hadlo marka aad wada joogtaan qof gaar ah ku dadaal inaad adeegsato luqadda jirka taasoo astaan u noqon karta heerka kalsoonidaada sidoo kalena muraayadu ah firfircoonidaada laga yaabaa dhowr jeer inaad la kulantay qof aad jeclaystay sheekadiisa hadhowna aad soo xasuusatay hadalladiisii iyo kulankiinii waxa uu sababa heerka saameynta luqadda jirka ama xarakaadka laga muujiyo xubnaha ku dadaal inaad kobciso xarakaadkaas ogowna in ereyadu saameyn leeyihiin laakiin markasta waxa ka saameyn badan luqadda jirka qodobka labaad ahmiyad weyn sii qofka waxa jirta oraah caan ah oo tiraahda qofna wuxuu ku dareensiinayaa inuu yahay qof cajiib ah qofka saameynta lehina wuxuu ku dareensiiyaa inaad adigu tahay ka cajiibka ah tus dadka qiimaha yaagtaada ku leeyihiin dareensii inuu yahay qofkaasi midka ugu muhiimsan dunida ugu yaraan waqtiga aad wada joogtaan si xamaasad leh wuxuu weydii waxyaabaha kugu cusub oo kuu sheego u sheeg inaad ka faa'iiday noqo qof uu qofkaasi agtiisa ku xasilo naftiisana ka dhaxarko waxaad ogaataa in dadka oo dhammi ay jecel yihiin in ahmiyad la siiyo si kastoo ay da'doodu u kala duwan tahay laga yaabaa inaad la kulanto ilmo yaroo 4 jir ah kadibna aad wareysato oo aad u muujiso danayn isaguna uu ku jeclaado sidoo kale qof weyn oo awowgaa leh isla intaas markaad u samayso waxaad agtiisa ka noqonaysaa mid aan la ilaawi karin xaaladan ahmiyad siinta dadku waa dareen bini'aadamkuna kama tagaan meesha ama cidda ay dareenkaas ka helayaan sirta qodobkani waxa weeye inta ay leegtahay ahmiyadda iyo danaynta uu qof gaar ah agtaada ka helayo waa isla inta ay leekaanayso saameynta wanaagsan ee aad maskaxdiisa ku yeelanayso qodobka saddexaad ugu yeedh qofka magaciisa waa mid ka mid ah waxyaabaha fudud ee aynu markasta ilowno qof kasta oo dunida saaran magaciisu waa ereyga ugu muhiimsan ereyada luqadiisa dadka badankoodu waxay magacooda u arkaan inuu ka qurux badan yahay magacyada kale marka aynu maqalno magaceena waxaynu si ogaal la'aan ah u soo jeedinaa dareemadeena oo dhan xitaa marka aad maqasho magacaagii oo loogu yeedhayo qof aan adiga ahayn si fudud ayaad u soo jeesanaysaa adigoo eegaya codku meesha uu ka yimi qaladka aynu galnaa badankeenu waxa weeye marka ugu horeysa ee uu qofku inoo sheego magaciisa ayaynu si fudud u ilownaa taasoo ina gelisa xaalad laga qajilaad ah dhammaadka wada hadalka marka aynu garan weyno magacii marka ugu horeysa ee qofku kuu sheego magaciisa isku day inaad u isticmaasho ama dhexgeliso dhowrka hadal ee ugu horeeya tusaale ahaan ma ogtahay xasanow inaan xiiseeyo ka doodista mawduucyada siyaasadda isla sidaad adigu u jeceshahay marka aad dhowr jeer isticmaasho qofka magaciisa wuxuu ku sawirmayaa magacaasi xasuustaada waxaanaad u xasuusan kartaa si fudud laakiin faa'iidada ugu weyn waxay tahay inuu qofku dareemayo inuu yahay qof qiimo weyn leh marka aad kala tagtaan qofkaas ee aad kulantaan mar kale isla markiiba ugu yeedh magaciisa wuxuu dareemayaa inaad tahay qof cajiib ah oo aan la mid ahayn dhammaan dadkii uu soo arkay haddii ay jirto hal sifo ama hal dabeecad oo aad ku aragtay qof misena saameyn weyn kugu yeeshay nagula wadaag qaybta commentiska aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.